dhana sharciga runtii waxa xusid mudan in Somaliland ay ahayd maamulka kaliya ee Soomaaliyeed ee ilaa hadeerto marka la eego ilaa iyo meel kasta Soomaali dawladnimada Soomaaliyeed ka jirto ayagu soo saaray mamnuucitaan cuntooyinka kor loo qaado qiimahooda kor loo qaado horfar media barwal waxay runtii aad iyo aad u rajeynaysaa in dawladaha iyo maamuladuba ay talaabooyin noocaas ay qaadaan oo runtii ay xayiraan cuntooyinka laga faa'iideysto marakan waxaana runtii wanaagsan in dadka waxa wanaaga sameeya aad iyo aad loogu daydo soo ahaan talaabadaas wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland qaaday waa talaabo wax ku oola isla markaana ku dayasho mudan beeheed marka la eego dhinacan iyo sida loogu baahan yahay maanta iyadoo xataa dawladii waaweyn ee Mareykanka dadkooda dhaqaalaha haystay baarinta ka digaya garamaayo waxa ay ilaa xamar iyo Puntland iyo Djibouti meel kasta looga aaminsan yahay ee talaabo noocaas oo kale aan loo qaadaynin oo loo mamnuucaynin in cuntooyinka kor loo qaado iyadoo alaabihii kale daruuriga ahaba la sheegay durba in kor qiimahooda loo qaaday waqtigan oo kale waqtigii gacmaha la isqabsan jiray la isku naxariisan jiray isla markaana talooyinka wanaagsan iyo hadalka wanaagsan la raaci jiray halka dagala socotaan waa wararkii wacali dhinaca diblomaasiyadda daawasha qiimaha leh runtiina wararka xanuunka coronavirus-ka way badan yihiin mar walba oo aad iyo aad ay u badan yihiin ama dalalka ka imaanaya ha noqoto